عبد الرحمن ورسمه waxaa lagu soo eedeeyay qodobada 434 ugu weyn yahay oo dilka ah dil in Aisha dilkeedii ka qayb qaadato dishay kufsi marxumadda loo geystay qodobkaasna waa lagu soo eedeeyay sidoo kale afduub waxaas dhan waxaa isku ururiyay qodobka dilka dembiga ma gashay mise ma gelin ha ma laga rabaa ama dood sharcigan kale intaas laga rabaa dood sharcigan ka qabaa soo koob ma gashay mise ma gelin arinkayga la hadlays dembiga ma gashay mise ma gelin horta su'aal jawaab marka hadda ha tiraahdo waa ku ogolanay ma hadda tiraahdo wax kale way arinkayga qabaa inaan la hadlo ninka la yiraahdo عبد الفتاح صفة على غفر dembiga lagu soo eedeeyay oo maxkamadda ku wax xukumaan maxkamadda sare maanta hor taagan tahay fursad bay ku tahay ma gashay mise ma gelin taas waa soo yes wagash yes dembiga wagash si dadban baan u galay waan ku dhameystirayaa suga qof hadli kara ma jiro aw ciidamada amniga ma aha meeshan masraxiya ma aha meel shir iyo bandhig iyo arrimo kale oo siyaasadeed looga hadlayo ma aha waa maxkamadeeni waa maxkamadda sare ee dowladda attentionka dejiya halaamus ciddii xadgudub samaysa oo waxayna ka ballan wax ka beddesha bannaanka la geenaya maxkamaddu ixtiraamkeedu waa ixtiraam gaar ah cabdifataax waa maqlaysaan mamiir qabtaa maskaxdaadu تمام بقولك بقول سماه وحو قرتي دنبغا inuu galay waa maqlayseen dhammaan shacabku soo maqleen aamus hadalku waxaan ka rabnaa marka faahfaahin baan rabaa inaan waxaan ka rab ya wa وقل اوكي aamus istaag adu istaag mana fariisanaysa istaag amar maxkamadood ma fariisan kartid waxaan rabnaa inuu cabdifataax naga siiyo su'aashan ku dinaa waxda cabdifataax maadaama ilaahay uu fududeeyay baa dambiga aqratay iyo wixii ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta meel ay joogaanba muddo tiro badan geliyay dhibaatooyin iyo hawl iyo mucjiso ay noqotay gabar yar dilkeed jarjarideed kufsigeed dambi inta laakiin la galo maxkamadda horteeda maanta ka qiratay waxaan ka rabaa sida dambigaas u gashay cidda kula gashay waxa sababay iyo meesha ku gashay fursadaas haysta ummadda u sharax maxkamadda u sharax waa mahadsantahay salaamaya maxkamadda sharafta leh ali maqlaya sama ya on way salaamaya maxkamadda sharafta leh garsoorayaasha xafiiska xeer ilaalinta qareennada shacabka iyo ciidamada amniga salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu su-aal baa idi weydiisay mudana guddoomiye si degan oo aan ka fiirsaday baan kaaga jawaabay eedeymo badan baa aniga la ii soo jeediyey ma hal eedeyn xafiiska ilaalinta wuxuu ii soo jeediyey anigu kufsi baan galay xafiisku xeer ilaalinta wuxuu ii soo jeediyey kufsi wuxuu ii soo jeediyey dil wuxuu ii soo jeediyey afduub wuxuu ii soo jeediyey khalkhalgelin amni soo sidaa ma ahayna xareen okay anigu kufsi baan galay mudana guddoomiye sharaxaad ka bixi kufsiga ay saa u gashay iyo cidda kula gashay wax dil oo aan galayna ma jirto waa ku maqalay kufsi baa gashay yaa kufsatay عايشة كوكسة سبحان الله نو شرحات نقصي سؤالي ودي كوكسي نوعوها يا كلا قيب قاتي محاك شدان بقول لي صوبه هاي محا خصبي وحا خصينا جيستيد أنا وحويان كوكسي قاسي waxa iga dhaadhiciyay igu qanciyay inaan galo goob joogna ka ahaado Cabdishakuur Maxamed Dige Cabdishakuur Maxamed Dige
subax buu dhacay gurigiisuuna ka dhacay 2 saac oo subaxnimo ilaa 2 saac bar caaisha isagaa afduubay isagaa gurigiisa geeyey anigu waa uu soo wacay keliya cabdishakuur maxamed dige haa waxaa degan isaga iyo hooyadiis may aniga isagaa ii yeeray yidhi waan kuu baahanahay darisna waa ahayn iska soo horjeeda haa waan is aragnay anoo gurigeyga hortaagan waan ku rabaa buu yidhi imo anoo gurigeyga hortaagan waan labistay waan baxay gurigiisaan ugu tegay oo qol irid banaanoo aniga iga soo horjeedaa waxaan u tegey isagoo qolka ku haysta caaisha waana xaqiiq waxa aan ka hadlayo anigu cid i khasabtay cid waxaa weeyaan ii hanjabtay cid isasabtay inaan xaqiiqada ka hadlo midna ma jirto waxa aan ka hadlaya waan weyse qabaa waa xaqiiq ilaahayna igu ogey waxaa weeyaan waxaan rabaa inay maxkamaddu sidaa ii fahanto cabdishakuur isagaa ii yeeray gurigiisaanan ugu tegey dabadeed waxaan u tegey isagoo qolkiisa irid bannaankaa ku haysta caaisho una xirxiranta muddo dood dheer ah kadib iyo cabsi fara badan oo aan dareemay wuxuu igu qanciyey wax fudud oo dhammaanaya inay yihiin waxaa weeyaan shaydaan baana ii kasbay anigu kufsi baan sameeyey goobtii faldambiyeedkana waan ka tegey caaisho oo nool waxyaabaha igu qanciya waxaa ka mid a in uu sii dayn doono markay hawshu dhammaato wixii intaa ka dambeeyana wixii aan mudano iyo se wax noqdaan la arki doono muddo saacada ah kadib goor gabalkii uu dhacay wuxuu ii sheegay in ay ka fursan weyday maadaama uu anigii iga da'weyn yahay in badan inay ka fursan weyday inuu sharaftiisa ilaaliyo inaan ka dhalinyaraysanayo haddii berri waxaa dhacaan in anigu aan ka soo kaban karo xagga da'da ama waxaa weeyaan xagga sharaftaba isagu wuxuu yidhi waan kaa da'weynahay haddii arrintaas ay soo bixi lahayd dhibka ugu weyn iyo sharaf darrada ugu weyn anuu igu dhici lahaa kufsiga gabadha dabadeed go-aanka weyn oo aan qaatay baa wuxuu yahay markii aad iga tagtay buu yidhi inaan dila caaisho anoo keligeeya gurigiisaan uga tegay mudana guddoomiye aniga iyo isaga iyo waxaan ahay nin eedaysanaa oo aan hadda goobta fadhin aadan maxamuud cabdille cabdille maxamuud cabdille maxamuud cabdille yes hala fariisto dhaqdhaqaaq ma jiro ninkii wixii xaalada amniga ciidamada ammaanka u xil saaran abukaata xabiib fariiso adoo maxkamadda aadan maxamuud cabdille may si fiican ninkaa dhalinyarada ahaa raas ahaan iyo qabiil ahaan baan wadaagnaa dadkana waan isugu badinaayo dugsigii saraan wada qaadanay waxbarashada gaalkacyuuna degan yahay aadan maxamuud cabdille yes waana reer gaalkacyood waa kaa waxaa weeyaan cabdishakuur waa yaqaan saddexdii naas labadii naas iyo cabdishakuur saddexdii naas weeye cidda dembiga gasho mudana guddoomiye waxaa weeyaan aadan da-aadda aniga hal sanaan ka weynahay ama 2 sano wax noocaasa markii aan qiyaaso markii aan qiyaaso da'diisa ma garat walaalkay meesha waxaa keenay baa waxay tahay inaan isku DNA noqonnay iyo inaan isku hidaraac noqonnay taasna waxaan ku mari karaa waxaa weeyaan shareecada iyo kitaabka
anoo ku dhaaranay adiga iyo xaqiiqada. aadan ka qayb qaadateen kufsiga mise aadan iyo cabshukuur way dileen aniga iyo aadan kufsigaan ka qayb qaadanay waan maya isku mar baan ka baxnay guriga aniga aadan isku xilli baan ka baxnay markii aan kufsiga geysanay cabdishakuur wuxuu nagula taliyey waxaana inay kufsi keliya noqon doonaan waxa weeyaan xaaladdu markay kala degtana uu gabadha sii dayn doono sidaasaan go-aan ku gaarnay waan ka tagnay anigu magaaladan aaday aadan magaaladan isku sii raacnay waa kala tagnay hal mar hal mar in badan buu nooga sii horreeyey gurigiisay taalla gabadha yes adiga cabdishakuur علاقات انتهى لك بين كده هي بريها المسافة لك انتهى لك بسجرين ما يقدم بيا نوعا وكلا هربش wax dambiyo aan wada galnay ma jiro kufsi hore aan anigu galayna ma jiro kufsi ama dambi weligay laamaha amniga imaysan qaban saldhigna kuma baryin magaceyguna oobi ma gelin cabdishakuur laba guriyo iska soo horjeedaan deganahay dariiqun baa noo dhexeeya qiyaastii ku qiyaasan 12 mitir 12 tallaabo waxa weeyaan waxaan kaloo caddaynayaa walaalkay inuu dembigaa berri ka yahay anoon laygu khasbin anoon wax kale la ii sheegin midna xaqiiqadan sheegaya